munaasabada xafladaasi ballaaran ee lagu soo gabagabeynayay tababarkii uga socday ciidamada ka socda dalka Soomaaliya dalka Djibouti muddada 3 bilood ah isla markaana lagu samootinay ayaa waxay ahayd mid ay ka qayb galeen mas'uuliyiin sarsaro oo reer Djibouti ah waxaana mas'uuliyiintaasi ka mid ahaa hormood u ahaa ra'iisul wasaaraha dalka Djibouti Daleita Maxamed Daleita iyo qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada sida wasiirka gaashaandhiga iyo waliba qaar ka mid ah madaxda ciidamada qalabka sida iyo kuwa kale ee dalka Djibouti sida taliyaha ciidamada qalabka sida iyo taliyaha ciidamada ilaalada jamhuuriga munaasabadaasi ayaa dhinaca Soomaaliyana waxa uga qayb galay mas'uuliyiin ay ka mid yihiin taliye ku-xigeenka ciidamada qaranka Soomaaliyeed ahna taliyaha ciidamada badda iyo difaaca xeebaha sidoo kalena ay ka qayb galeen xildhibaano iyo waliba qaar ka mid ah mas'uuliyiinta safaaradda dalka Soomaaliya ee Djibouti ku taala munaasabadan oo ahayd mid iyada aad loo soo agaasimay ayaa sidoo kale waxa ka qayb galay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada dalka Faransiiska oo iyagu qayb ka geysay tababarka ciidamadaasi iyo waliba danjiraha dalkaasi Faransiiska munaasabadaasi furitaankeedii ayaa waxa hadal dheer oo iskugu jira dardaaran dhiirigelin iyo waanaba ka soo jeediyay oo halkaasi ka hadlay taliyaha ciidamada qalabka sida ee dalka Djibouti Sakariya Sheekh Ibrahim oo isagu dardaaran ku dhuray ciidamada kusii jeeda wadanka Soomaaliya una dhamaaday tababarku waxaan leeyahay ciidamada halka jooga ee tababarkoodii dhamaystay muddo 3 bilood ku dhamaystay ayaga oo tababarka u kala qaybsanaa bad ay soo dhiseen oo tababar u soo sameeyeen dawladda Faransiiska ee aan saaxiibada aadka nahay ee nala degan halkani oo ah ciidamada midigta iga jooga iyo ciidankii kale ee lagu baray halka kan iskuulka kani amba madrasadani loogu magac daray Alxaaji Xasan Guuleed waxaan leeyahay mar labaad wixii aad barateen Ilaahay idin barakeeyo hayniga dhigo wax idin nafaca idinka iyo dalkiina iyo wadankiina iyo ummadiina wax idin nafaca Allah ka dhigo waxaad imaka halkan lagu arkayay inaad ku dhaarateen magacii Ilaahay aad ku dhaarateen kitaabka Qur'aanka aad ku dhaarateen diinta xaniifiga ee islaamka aad ku dhaarateen u dhaarateen dalkiina dawladdiini dadkiini aad dhaar u marteen dhaarta aad dhaaratay haddii aad garamatid oo buuxin weydo ogaada dad islaamaatihiin adduunyada waa laga wala tagi Ilaahay baa loo tagi waxaan Ilaahay weydiinaynaa oon idin baryaynaa dartiin oon si daacada idinku sheegaynaa inay iraadada Ilaahay iyo arrinta maanta halkan aan ku hayno inay isku timaado oo maanta dan iyo laga gaaro maxay wax qabad waxa munaasabada sidoo kale ka hadlay ra'iisul wasaaraha dalka Djibouti Daleita Maxamed Daleita isagoo aad ugu mahadnaqay amaanayna sida wanaagsan ee ciidamadu u dhameysteen waxaan u wadiinaa waxa ducada oo dirayna horta wadaad ogtihiin dalkii Soomaaliya dibaato ku jiraan waan ognahay iyagana xaggan Djibouti markay yimaadeen wuxuu bartaan actionadii sidee difaacii dalka inuu la galo dhibaatadii joogta Soomaaliya waa ogyihiin mas'uuliyadii u qaadeen waanu hambalyeynaa insha Allah mas'uuliyiintii ka qayb gashay ee munaasabadaasi waxa ka mid ahaa wasiirka arrimaha dibadda dalka Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf oo isaguna warbaahinta uga waramay ciidamadaasi iyo waliba tababarka ay dhameysteen taasi waxay horta muujinaysaa inaan anagu waajibkeena inaan iyo xilkiina saaran inaan maaragtay aan qaadnay aan gudanay dabadeedna xal kale oo maanta dhibta dalka Soomaaliya haysta xal kale oo loo raadin karayo oo dariiq kale loo mari karayo inayna jirin ayaan aaminsanahay xukuumadda ku meel gaarka ee maanta Soomaaliya laga dhisay xukuumaddaas in la taageero oo ciidana lagu taageero oo la qalabeeyo ciidanadaas oo la tababaro kolka arrintaasi anagu kaligeed ma wadno ciidanada Faransiiskana la wada ayaan dhaweedna waxaan la kulmay safiiradii dalalka Yurub arrintaasna waynala kaashadeen waynala ogolaadeen waynala qabanayna idhaaheen kolkaas waxay tusaale u tahay horta dalalka Afrikaanka inay kaligood Soomaaliya
inay dhiigooga u bixinin ay naftooda ay u horin dadweynaha Djibouti ciidanadiisa iyo wixii dee siyaasiyiinta Djiboutina bilowgii dawladda Soomaaliyeed kolkay burburtay ilaa maanta dadaalkaasi waa dadaal joogta weeyaan waa wax isdaba jooga arrimaha ilaaliyaha Soomaaliya oo isagu si aad ula socday inta ciidamada tababarku u socday ayaa waxa uu isaguna warbaahinta u sheegay muddadii ciidamada uu tababarku u socday inuu si wanaagsan ahaa gacan aad iyo aad u weyn horta ayaa laga geystay in la tababaro oo si fiican loo tababaro ciidamadii waxayna diyaar u yihiin maanta inay howl galaan shaqadii loo tababaro ay u howl galaan qalabkoodii wuxuudina waa u dhan yihiin qaarna waa ay ka horeeyaan waxa sida lagu soo gabagabeeyay xafladii sabootinta ahayd ee lagu samootinayay qaar ka mid ah guutooyinka ciidamada dawladda ku meel gaarka Soomaaliyeed ee muddada dhowrka bilooda tababarku uga socday dugsigan aan hadda dhex joognay ee lagu magacaabo Alxaaji Xasan Guuleed Abdudeen oo ku yaala degmada Holhol ee ka tirsan gobolka Cali Sabeex waxayna ciidamadani markii xafladda loo soo gabagabeynayay ay madaxda ciidamada dalka Jamhuuriyadda Djibouti ku dhureen dhammaanba dardaaran iyo waanooyin wixii ay u hayeen iyadoo halkaana laga codsaday inay xilkooga u gutaan sidii loo igmaday isla markaana ay ugu qaateen tababarka dhowrka bilooda ee uga socday isla xerada tani Ali Cabdullaahi Universal